xiisad dagaal oo ka taagan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. Aadan Madoobe oo iscasilaya, Mahad Salaad oo loo yeeray, xogo xasaasi ah, macluumaad dheeri ah oo ka qarsoon, iyo arrimo kale ayaan kula wadaagayaa daawade marka hore si aan faahfaahinta u guda galno sheergarey muuqaalka ku faafi guruubyada oo la wadaag saaxiibada si muuqaalka meel fog u gaaro. sidoo kale waxaa inaga xusuusinaa in like iyo share-ta muhiim ay noo tahay. like la dhac muuqaalka si la mid ah nagu soo biir oo qayb ka noqo saaxiibada nagu xiran ee hela macluumaadka halkan aynu ugu soo baahino. waa hagaag aan ku horeyno. xiisad dagaal ayaa waxay ka taagan tahay xarunta baarlamaanka Soomaaliya ee golaha shacabka, waxaana culays markan soo food saaray gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe, iyadoo laga cabsi qabo in Aadan Madoobe uu iscasilo. waxaana culeysyada Aadan Madoobe ku siyaadinaya problem iyo sidoo kale buuq hareeyay baarlamaanka Soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyay faragelin lagu hayay. amniga baarlamaanka ayaa laga deerinayay maalmihii la soo dhaafay. culeysyada siyaasadeed ayaa ku siyaaday baarlamaanka Soomaaliya, taa oo ka dhigtay in Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe, gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, uu ku dhawaaqo in haddii xaalku isbedeli waayo uu iscasilayo. waa uu ku dhow yahay saacadaha soo aadan haddii xal uu imaan waayo, waxaa macquula inuu iscasilo. baarlamaanka Soomaaliya gudoonkooda ayaana shir jaraa'id oo gaara waxay la qaateen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, taa oo ka dhigtay in ay kala hadlaan culeysyada xilligan hareeyay baarlamaanka. Mahad Maxamed Salaad, hogaamiyaha nabad sugidda Soomaaliya ahna agaasimaha hay-addaasi, ayaa loo yeeray, taa oo ka dhigan in culeyska markan qayb ka mid ah haddii xal loo helo Mahad marka la horgeeyo baarlamaanka ay fududaan karto. balse culeysyada jira ayaa ah in Mahad Maxamed Salaad oo ah taliyaha nabad sugidda Soomaaliya markan looga yeeray baarlamaanka, iyadoo amniga Muqdisho iyo tan baarlamaanka ee guud iyo midda madaxtooyadaba laga deerinaya maalmihii la soo dhaafay. culeys walba oo yimaada xal ayuu leeyahay ayay yiraahdeen qaar ka mid ah falanqeeyaasha arrimaha siyaasadda iyo sidoo kale xubno ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya oo si hoose inoola hadlay. balse qaarkood ayaa inoo xaqiijiyay in arrintu baraka ma leh ay taagan tahay oo ay gacanta ka taageen qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ugu sarreysa dowladda sida ra'iisul wasaaraha iyo xubno kale oo ka mid yahay gudoomiyaha baarlamaanka. xalka ugu dhow uguna fudud ayaana laga dhowr sugayaa in uu ku dhawaaqo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. haddii uu maaro u waayana waxay noqon doontaa midii ay ku kala tegi lahaayeen dowladda damul jadiid ee Xasan Sheekh Maxamuud xilligan uu hogaaminayo. culeysyada siyaasadeed ee hareeyay baarlamaanka ayaana hadda u muuqda in aan xal laga keeni karin marka loo eego hanaanka xildhibaanada loo wajahayo, midda baarlamaanka guud iyo sidoo kale midda amni ee hay-adda nabad sugidda taliyahooda laga wareysanayo. balse kulankii gaarka ah ee u dhexeeyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh iyo gudoonka baarlamaanka oo ay matalayeen Aadan Madoobe iyo ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka ayaa waxa ay noqotay mid si weyn loo hadal hayay saacadihii la soo dhaafay. waxaa xoguhu ay tibaaxayaan in kulankaasi natiijadii ka soo baxday ay noqon doonto xilligan mid saameyn weyn ku yeelata taliyaha nabad sugidda Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad oo la og yahay in si weyn uu ugu dhow yahay madaxweynaha Soomaaliya. culeyska siyaasadeed ee u dhexeeya Mahad iyo sidoo kale Aadan Madoobe ayaa sii cuslaanaya, iyadoo maalmihii la soo dhaafay baarlamaanka kulamadii ay yeelanayeen caqabad ay ku noqdeen dhalinyarada dharcadda ama ilaalada shacabka ee la geeyey xarunta baarlamaanka Soomaaliya oo xildhibaanadu ay cawasho ka gudbiyeen, taa oo ka dhigtay in Aadan Madoobe markan xalkeeda looga fadhiyo. culeysyada siyaasadeed ayaa sii xoogeysanaya marka loo eego hanaanka xilligan wax lagu wado. baarlamaanka Soomaaliya ayaana u muuqda markan mid lagu kala dareeri karo haddii xal uu waayo gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe oo xilligan wajahaya culeysyo kala duwan oo kaga imaanaya xildhibaanada baarlamaanka, mas'uuliyiinta dowladda ee kale iyo shacabka Soomaaliyeed intuba.